wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhanka kale oo haadahan oo kale aad ka daawataan Cayaar Bile. barnaamijkeena dhanka kale waa barnaamij toddobaadle ah oo aan ku soo qaadano xidigaha kubadda cagta ee caalamka ee barnaamijyada ka baxsan footballka iyo sidoo kale intii ku guda jireen ciyaaraha kubadda cagta noloshooda gaarka ah ganacsiga ay sameeyeen markay ciyaaraha ka fadhiiseen iyo sidoo kalena waxyaabaha kale ee u qarsoon ee banaanka kubadda cagta ka saabsan. toddobaadkana waxaynu ku soo qaadanaynaa difaacii hore ee kooxaha Manchester iyo sidoo kale Barcelona La Masia ka soo qalan jabiyay Gerard Piqué. ciyaaryahankii hore ee akademiga La Masia waxa uu ku guuleystay koob fara badan inta garoomada kubadda cagta ku guda jiro waa mid kamid ah daafacyada ugu fiicnaa ee jiilkiisa waxaana warbixintiisa kooban loo soo koobaya muxuu Gerard Piqué ka qabtay garoomada saaxiibkay Mahad Shariif Jilcow aynu daawano warbixintan uu noo diyaariyay. xifadiisa ciyaareed waxay ka bilaabanaysaa gudaha dalka Spain gaar ahaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona waa Gerard Piqué mid ka mid ah daafacyada ugu wanaagsan ee kubadda cagta soo mara xidigan ayaa u soo ciyaaray Manchester United si lamid ah Saragossa iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku sheegan karayo guulo waaweyn markii la eego xifadiisa ciyaareed laga soo bilaabo tan iyo 1997 markaas oo qayb ka noqday kooxda daayarta ee Barcelona ilaa iyo markii dambe oo Man United ka siyaaday ugu dambeyn ciyaarihiisii Barca uu ku soo gabagabeeyay. Gerard Piqué ayaa rikoor guuleed oo aad u weyn leh markii la eego fiilkiisa qaaska ee ku xindaaban rikooradiisa guuleeda laakiin arinta kale ee cajiibka ayaa ah in dhammaan iibkiisu xidigani isagoo ka mid ah daafacyadii ugu wanaagsan ee kubadda cagta soo maray ku baxday kaliya 10.25 milyan oo lacagta Euro ah. iibkiisii ugu horeeyay wuxuu markaasi dareemay in markaa la iibsaday xilligii kooxda kubadda cagta Man United gaar ahaan 1 July 2004 xilligaas oo Man United 5.25 milyan oo lacagta markaasi Euro ay ku bixisay laakiin wuxuu Man United ku sugnaadaba ugu dambeyn 5 milyan oo Euro ayuu 2008 1 July ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona ugu dambeyn sidoo kale 1 Janaayo 2023 ayuu ka fadhiistay gabi ahaan mixnada kubadda cagta ee ku aadan ciyaartiisa wuxuu sheegan karayaa ku guuleysiga koob waaweyn si lamid ah wuxuu markaa sheegan karayaa safashidiisa inay ahaayeen kuwo markaas u cajiibsan naadiyadii kala duwanaa oo u soo ciyaaray La Liga 419 kulan ayuu saftay 32 gool ayuu ansixiyay wuxuuna markaasi caawiyay 8 kale 109 jaalo ayuu waayihiisii horyaalka dalkaasi Spain qaatay 4 roos oo toos ayaa loo taagay 5 kaar guduudan oo markaasi lagu siiyay 2 jaalo isxigana waa uu qaatay taasoo ka dhigan in kariirkiisa guduudka ilaa 9 ay gaarayaan 35,99 daqiiqo ayuu saftay horyaalka dalkaasi Spain. Champions League 128 kulan 16 gool iyo 2 caawin ayuu sameeyay laacibkani. Copa del Rey 17 kulan 8 gool iyo 1 caawin. Premier League dalka Ingiriiska kaliya 12 kulan ayuu saftay. koob kale ayaa jira oo safashidiisa markaasi tiir dhaxaad u ahaa si lamid ah guulo waaweyn oo ka qaadanayay. waayihiisii kubadda cagta inta badan waxaa loo adeegsanaya boosas kala duwan sida daafac dhexe, kubad burburinta oo qadka dhexe ah, daafac bidix iyo daafac midiga. waayihiisa rikoorkan waxay tilmaamayaan in daafac dhexe uu ka ciyaaray 641 kulan 58 gool oo ku dhaliyay 14 kalena uu ku caawiyay. 5 kulan ayaa loo adeegsaday lambarka lixaad ama kubad burburinta ee qadka dhexe, daafac midig iyo silmada daafac bidixne min 1 kulan ayuu laacibkan ciyaaray. marka uu soo dadagno koobka si lamida rikoorada waaweyn ee xidigan diiwaanka ugu jira wuxuu ku guuleystay koobkii adduunka ee Spain 2010 oo la qaaday European Champion ama Euro ayuu qarankii Spain kula guuleystay 2012 Spain markii laga soo tago Barcelona 3 jeer ayuu kula guuleystay Champions League hal marne Man United ayuu la hantay taasoo ka dhigan in guud ahaan ilaa iyo 4 jeer uu ku guuleystay koobka aadka markaas loo qadariyay Champions League. wuxuu kaloo ku guuleystay FIFA Club World Cup oo 3 jeer ah horyaalka Premier League hal mar ayuu qaaday 9 jeerne wuxuu markaasi naadigiisa kula guuleystay horyaalka dalkaasi Spain laga soo bilaabo 2008 ilaa 2023 3 UEFA Super Cup 7 jeer oo Spanish Super Cup ah si lamid ah waxaa sii xiga koobka markaasi la yiraahdo Spanish Cup waa 7 jeer oo la qaaday halka 6 jeerna Spanish Super Cup sidoo kale uu kula guuleysanayay. laacibkan aad ayaa lagu qadariyaa kubadda cagta waana mid kamid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan ee daafaca ka ciyaara wuxuuna ku jiraa asaagiisa markii la eego liiska Franco-Tiriska ee ka tilmaaman kuwa markaasi isku jiilka ayeen si wanaagsan daafaca laacibkan ugu soo dhex muuqanayay.
waayahay aynu kasoo laabano warbixinta ku saabsan Gerard Piqué difaacii hore ee Barcelona iyo sidoo kale xulka qaranka Spain waa ciyaartooy 11 koob oo heer kooxeed ku guuleystay 9 kamid ah horyaalka La Liga 3 kamid ah waa tartanka qaaradda Yurub ee loo yaqaan Champions League waana mid kamid ah 4 ciyaartooy oo laba kooxood oo kala gedisan laba xilli ciyaareed oo kala duwan Champions League la qaaday waxaana laga xusi karaa Samuel Eto'o oo hore u soo maray Inter Milan xitaa Barcelona ee soo dhow balay waa maasata Naciima kulay Gerard Piqué waa mid kamid ah ciyaartooyda daafaca ugu fiicnaa Manchester United inkastoo waayisi uu ka soo bilaabo hadana xirada La Masia ciyaartooydu wuxuu kamid yahay hebooyinka kubadda cagta ee La Masia laga dhaxlay academigan waxaana professionalkiisii uu ka soo bilaabay kooxda Manchester 2004 inkastoo Barcelona 4 sano kadib dib ugu laabtay 2008 hadana waxa uu ka caawiyay kooxda Manchester triple-kii inay qaadaan 2008 iyo 2009 sidoo kale 2014 triple kale oo qaaday oo la qaaday kooxda kubadda cagta ee Barcelona laba jeer isku xigta ayuu la qaaday sidoo kale ninkan waxaad muddo ku dhawaad 650 kulan ku dhawaad inuu saftay heerarkiisa kubadda cagta naadi sida noo sheegtay ba 31 koob ayuu qaaday Gerard Piqué waayisi Manchester markii hore sicirka Leverkusen ayaa soo arkaday xirada academiga La Masia way soo qaateen option kooxda Barcelona markii hore heshiiska waxay ku dartay inay dib u iibsan karaan markii ay Barcelona oo koobkii ay la qaadeen kooxda Real Madrid ay raadi Manchester markuu koobkii la qaaday 2008 kooxdii wuxuu kamid ahaa Moscow koobka kula guuleysa Manchester laakiin wax saameyn badan haduu ku lahaana oo ku lahaa laakiin siisakaas horyaalkii iyo waxa muddaa in si fiican u dadaal marka si guud anyway waa daafac kamid daafacida ugu fiicnaa intuu Manchester joogayna waxaad moodaa in shaqooyinkiisa sirka uu jaanis fiican u siiyay kadibna oo dib ugu laabtay kooxda Barcelona marka meeshaas ka bilaabanaysa waayihiisa guulaha ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo marka la fiiriyo 600 iyo 50 kulan ama ka badan ba uu ciyaaray inta ugu badan Barcelona uu ku qaatay oo kacdoonkii Barcelona ee Pep Guardiola oo markaas Frank Rijkaard xilka kala wareegay dadkii lagu kiciyay ayuu kamid ahaa isaga iyo Xavi Iniesta iyo Messi oo markaas soo baxay La Liga iyo Champions League Super Cup koobka adduunka wax uu soo qaaday Barcelona ma jiraan sida noo sheegtayna Champions League waati uu la qaaday 3 kamid ah oo 4 ciyaartooy oo hore taariikhda rekoorka isaga kaliya ay u yaalaa iyo 3 ciyaartooy kale Michael Desailly kamid ah waa Marcel Desailly ciyaaraha Francis White Paulo Sousa waa macalinka hadda ee kooxda kubadda cagta Olympique Lyon iyo Samuel Eto'o oo Barcelona markii uu ka tagay Barcelona la qaaday uu ka tagay Inter la aaday hadana horo oo kala qaaday marka ciyaartooyda nasiibka Manchester ka tagay Barcelona aad isa Barcelona ka qaaday Barcelona la qaaday isla Manchester ka qaaday sanada dhan oo isku xigaan labadaas nin isku xigaan waliba ogaw isla 2009 wuxuu ka qaaday Manchester finaalkii Roma lagu qabtay hadaa xasuusato Lionel Messi goolka madaxa uu ka dhalinay isoo koob la'aan isla 12 Ma United isla 12 hadana Ma United laba koob markuu siirka u jareynay markaas wadaawnaysan ويراني تانية ومركز برنامج البوير هذا وشو بلاد لابد يكون لحي تبنكي مانشستر أو جامبي القادي اسمه داوت مانشستر أو جامبي القادي اسمه داوت وداوت يوتيوب كذا داوت هاي برنامج كنورت ويا عيرتيga sidoo kale heer international waxa uu ku leeyahay garaado aad u fara badan waxa uu markii ugu horeysay Spain matalay 12 February 2009 guud ahaan xulka qaranka ee Spain 212 kulan ayaa markaasi uu ka soo muuqday rol muhiim ah oo ka qaatay 2010 ciyaarihii koobka adduunka ee FIFA oo yaraa waliba markaas aad u daayira waa meesha isaga iyo macluumaadiisa iska arkeen waa sheeko dheer waa marka ciyaaraha jooga u haaniga soo ay wax badan ku haya ciyaarahaasina dabcan markii ugu horeysay iyo markii kaliya ee lagu qabtay qaaradan Afrika ay ahayd sidoo kale wuxuu ciyaartooy qayb ka ahaa Euro 2012 xulka qaranka Spain retirement-ina waxa uu noqday kadib koobkii adduunka ee Moscow lagu qabtay 2018 marka ciyaartooy waxa waay aad iyo aad loo tixgeliyo لكن نعيمة مركا سجود لقي مايو وحكيمي دي هاي إن كستو برنامج كان دابا أقول لك جدا عيارتوي كوبا عكتا سفرات إسقى صقر ما هاي العكا سمائية ما هاي ضدك وحي معناها فرقوتيرسكا وحوا إيغو ميلينيرا كوبا عكتا صقر واي
marka si guud marka u laabano heerarkiisa kooxdeed Manchester United oo kale waxaad moodaa in laba gool kaliya uu dhaliyay 12 kulan intuu waa 2004 waay amaha loogu diray Real Saragossa 2006 2007 seasonkaas Gerard Pique marka dib ugu soo laabtay Manchester 2007 macnaha Manchester maadaama ay gateen ay soo qaateen amaha dib isaga direen oo 2006 2007 marka seasonkii dib ugu soo laabtay 2007 ka soo laabtay markuu ka soo laabtana waxa uu noqday ciyaartoy aad u fiican inta aanu dib ugu laaban 2009 ama 2008 dabiiqadiiba waayo Barcelona markaasi waxaad moodaa in 50 milyan oo release kalooska ah markaas ay bixiyeen si guud marka loo qiimeeyo ninkan individual amarna kala duwan ku guuleystay oo marka la fiiriyo daafaca kooxda Manchester ugu fiicnaa 2004 2007 2008 Real Saragossa 2006 2007 Barcelona 2008 sidoo kale waxa loo magacaabay marka la fiiriyo ASTM Team of the Year abaalmarin 2010 2011 13 14 15 iyo sidoo kale 16 marka abaalmarada kale uu ku guuleysan kan waxa kamid ahaa Spanish Youth Teamkii ama UEFA ciyaartooyda 17 sano jirada ah Spain ayuu ku qaaday 2014 kalanta labaad ay galeen UEFA European wuxuu qaaday 19 jirada 2006 sidoo kale Premier League ku guulay waa Manchester United oo kale abaalmarada uu ku qaaday waxa kamid ah FA Community Shield 2007 Premier League la qaaday iyo UEFA Champions League 2008 marka waxay xilligii triple-ka ay qaadayeen Barcelona kale Copa del Rey uu la qaaday 9kii 12kii 15kii 16kii 17kii 18kii wada dashay La Liga wuxuu la qaaday 9kii ilaa 2019 waxa soo dhex galay bis 10 wala qaaday 12 ay raadi 12 iska dhaaf Riberyda qaaday 13 15 iyo 16 18 iyo 19 Super Cup la qaaday 9kii 10kii 11kii 13kii 16kii 18kii UEFA Champions League 2009kii 11kii 15kii UEFA Super Cup-kii ayuu qaaday 2009kii 2010kii iyo FIFA Club World Cup-kii la qaaday 2009kii iyo 11kii iyo sidoo kale 15kii marka ciyaartooydu wuxuu kamid yahay Franco-Tiriska ee kacdoonka Lionel Messi ee Barcelona waa cadaraha ka dhigay waxaa la dhahaa waa mid kamid ah generationkiisa ama jiilkiisa xidigaha ugu fiican ee markay timaado ka ciyaaritaanka center back ciyaartooy guuleystay waaye marka qaarna waxa arki jiray in la dhaliilaayo markii dambena aaminaada Barcelona si weyn u sarakacday waxa lagu xasuustaa shantii hada ka hor calaamadaha yani uu muujinayo Real ay kaga badiyeen marka Gerard Pique 1 ilaa 10 maxaa sii kartaa waa qabadkiisa نعم ما بدنتها نيناسي sababtoo ah ma yafiiri daad ciyaaryahankan uu jiray Spain ka soo baxay dib ugu laabtay Barcelona ninkan uu guuleystay of course ciyaartii guuleystay marka duu guuleystay maxay gartaa marka qiimeynta 9 ansi ma kula tahay okay mida ku weydiin Ramos ma qasi lahayd 1 ilaa 10 Ramos waxaan sii lahaa aniga asigana Gerard Pique kulli waa Pique ina 7 kiisay Ramos waa ka sar maray lahaa 10 ansi lahaa واي waxa u qiimeynaa waxay tahay naadi iyo xul wuxuu ka qabtay laakiin Ramos zaida lagu kalsoonaa Gerard Pique ka kalsoon badnaa maya sababtoo ah laba daafac oo center back oo kala duwan waay nina lafaha ii jabsan waay nina kubad aqliyaysan oo dheelay Ramos Ramos waxay tahay tan aan u siiyay ama 9 oo aan u siiyay macnaha Ramos inta rosa uu qaatay fiiri daafac ugu roosada badan la liiga waa laakiin waa lagu kalsoonaa jirnin biro ah laakiin ay Ramos ay dila ratamiya 9 siina may dila ratamiya may Ramos jafaya rabta Ramos 9 siina hay Gerard Pique 7 siina tan ya siilad marka ya tan ya siilad oo daafac Ribery am Barcelona buya la soo Ramos Mascherano may Mascherano daafac ma hen dhexo ahay اوكي waxaan sii lahaa wallahi Ramos ka soo dhaw Ramos soo dhaw marka maya Pique oo aqliin oo dheelay rasuulkiisa way yaraayeen discipline oo lahaa iyo warnaftiis maya kaas sidid hatta lix muu qalan baba ashca nin dad ku istaagay madaxa u istaagay waa macnaha fiiri fair play-gan kubadda cagta ciyaaryahanka marka 9 ku dhahayo waxa waaye discipline-ka oo qaaday quality-ga 9 maya quality-ga fiican yahay dilaa waayo hal maya waa ciyaartoy go'aamada uu gaaro go'aam ciyaaraha macnaha nin wax ka bedeli kara waa Champions League rimidii qaadisay 1114kii kubadii madaxa Atletico ka dhalinayo kale oo ilaa 93 daqiiqo madaxa u qorantay xasuustaas naadiga rimid guulahu la gaaray 2004 2003 asoo daayar aan arkay Ramos ciyaartoy waaweyn la soo qarabtay marka waa ciyaartoy waxa waaye aad u qiimo badan walaakiin Gerard Pique xogaa discipline inkastoo labo gobol oo aad u xifaartan ay ka soo jeedaan oo Soomaaliya iyo Soomaaliya camal
oo macnaha BK marka waxaa moodaa si guud inuu yahay ciyaartoy aad u fiican talent leh aad u dheer laakiin jambigii uu la dheelaya kala duwanaa jiilkii uu la dheelaya jiilku la dheelaya ninkan jiil waxay ahaayeen markaas soo kacayo isku xor ay ka baxeen buuyo Gerard qaranka ku dambeeyay labadooda qaranka waxaa ku dambeeyay BK kale waa 18 waa ciyaarey Moscow kadib safiican marka kulli ciyaaryahankan way dambe ciyaaraha uu ka fadhiisay sabab khilaaf darteed Barcelona markii Xavi uu loo dhiibay way isxamili waayeen oo ciyaartoyda waaweyn wuxuu ka mid ahaa kubadda cagta markii dambe naadiyo gatayba oo heerka hoose Serie B-da ah meeshaas hadda isaga xamaasha tartan oo aas-aasay marka waxa dhigi karaa ciyaartoyda guuleysto ka mid ahaa marka sheekooyinkiisa garoonka waxa ka badan kuwa banaanka ah way isaga iyo de saaxiibadiisa ayaan aad uga sheekeyn doonaa gabadhii ahayd Shakira marka qaybta kale ee barnaamijkayga in eegno waagaag isku soo noqod wanaagsan markana waxaan sii anbaqaadaynaa qaybaha kale ee barnaamijkayga dhanka kale oo aynu kusoo qaadanayno difaacii hore ee Barcelona iyo sidoo kale xulka qaranka ee Spain Gerard Piqué Piqué daawade waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 2 February 1987 waxaana sii raacinayaa saaxiibadiisii hore ee dhalashadeedii waana gabadha lagu magacaabo Shakira oo ay muusigiste Colombian ah qaadatay dhalashada Mareykanka asalkana marka loo Lebanon iyo Colombian iyo meelahaas gasha mashakal waa marka naga u qurxo mashakal waana ogtaan oo Man United taageeri jirtay markii dambana Real way taageeri jirtay iyada meesha ninkeeda aaday taageeray Barcelona markii ninkeeda marka iyadan waxay dhalatay February 2 asna February 2 meesha ما أسيجا صفيعة 1997 meeshan 97 ما يكون isgaal 777 leh waa bigin xiriirka meesha 7diina way ka sameeyeen sida dalada 10 sano oo sax kala ikawinta oo farqi ahaan u dhaxeeyo xiriirka inta lahaayeen si raacinaya anoo raba sheeko kale u dhow ina raaciyo xiriirka waxay lahaayeen marka la fiiriyo horta xiriirka waxay bilaabeen adii markii koobka adduunka World Cup-kii heesta markaas isku arkeen marka waxa ka horeeyay laakiin gabadhan markii ugu horeysay xiriir waxay bilowday 1999 iyada waa markii aniga oo hooyo aabis aruusayna maleena ma sha Allah maadaama 2005 aan dhashay marka markii waxay shukaansanaysaa 1999 inta saftan waaye waxay shukaansanaysaa nin oo Argentines oo lawyer ah iyada rag badan ay soo martay marka nin lawyer ay shukaansanayay marka ninkaasna waxa dhalay madaxweynaha Argentina wiilka ay shukaansanayay waxa la Antonio Darhu waxaana dhalay madaxweynaha wadankii Argentina ee waqtigaasi ee Fernando wuxuu Fernando gaaminay wadanka Argentina 1999 ilaa 2001 labada shakhsi marka ninka oo lawyerka ah iyo sidoo kale Shakirana waxay xiriir lahaayeen 11 sano ay xiriir lahaayeen waxaana xiriirkooda u burburay bishii August ee 2010 hal sano retirement noqotay safiican oo xiriirada ay ka fariist intaasna daawashay waday safiican Gerard Piqué bilowday Piqué-na iyadana isguursadeen Piqué 11 sano waa socdeen kaasna 11 sano baran joogay baran joogay 22 sano marka 23 sano Shakira iyo laakiin ninka la dhaho Piqué u wada imaanada dhexdooda waxa uu joogo Milan Piqué Sasha Piqué iyo Trevia kan koobaad markuu wuxuu dhashay 22 Janaayo 2003 Barcelona ku dhashay wiilka labaadna wuxuu dhashay 29 Janaayo 2015 safiya maxaa raacinaysaa waxa raacina horta waxa muddo xiriirkoodii adaan oo sheegtay 11 sano wadi jiray Gerard Piqué iyo Shakira marka waxa jiro oraahyo badan iyo waxyaabo fara badan oo laga diiwaan galiyay horta iyada waxa waaye heesaa waaye waliba waxaa jiray in xiriirkoodii waqti fara badan uu jiray laakiin ay soo gabagaboomay muddo aad u fog Shakira iyo Piqué marka 2014 waxaa jirtay in abaalmarin lagu magacaabo Billboard Music Award oo ka dhacday magaalada Miami ee dalka Mareykanka ay soo wada xaadireen Piqué marka sidoo kale waxaa jirtay May 14keedii 2014 Las Vegas Nevada xaflad ka dhacday adii abaalmarin badan ay ka wada qayb galeen Spain markay ku guuleysatay World Cup-kii 2010 labada xiriirkoodii markaas shaaciyeen relationship
relationkoodii confirm ay ka dhigeen 2011kiina waxaad moodaa in laba caruur ay u dhalatay oo Milan waa Milan iyo sidoo kale Shasha 2010kii waxaa dhacday marka Shakira iyo BK inay ku wada kulmeen sida noo sheegtay bay muusigii la duubay ee ku aadana marka la fiiriyo heestii waka waka ee koobka adduunka intaas waxaa sii dheer marka in labadooda 2010kii haddana muusigii markii waka waka la wada duubay South Africa xoogaa meesha shukaansi uu ka dhacay Spain la isku balansaday Spain xiriirkoodii ku sii socday media marka 29kii March ay jireed BK iyo Shakira is rasmi u shaaciyeen in ay saaxiibo ay yihiin ayna rabaan inay isguursadaan Twitterka iyo sidoo kale qoysaskii waa la wargeliyay May 2011kii marka waxa dhacday Shakira iyo BK in meel xaflada xoogaa yar isku dhunkadaan oo isku shumiyaan waxaana ku horeysaya social media inay ku shaaciyeen waxaa la arkay Jared BK iyo sidoo kale Shakira in Twitterka iyo Facebooka markaas ay soo dhigeen muuqaal iyagoo naftirkooda ishagareenayo kaleete caption waxaa looga soo dhigay yani erayo oo cajiib laakiin macna ahaan wax weyn ka dhigan yani sida waxaan dhinaceeda ahaaday ama aan la jooga camal qoraxdii معنا قرحة عاد إيه مغرس سفيان مركز جنوري لبوك لبي طبعاً رير كاربتكي وجوه الرياء ولا تجين يجوا ولا صعدة أو معناها حفلة وين أو لما أنا يال ها رسمية مركز جرد بيكي شاكيرنا رير كاربتكي وها فيفا بولندي أورا لبوك يكون طبعاً يصير كلنا جنوري sagaalkii 2012 zero ka dhacday nasido kale xaflad badan ay jiray 2012 xitaa BK waati amaran la siiyo oo kamid noqday 2012 ciyaartoy ugu fiicnaa si fiican marka 2012 September waati Jared BK iyo sidoo kale u dhashay cunugoodii saddexaad halkaasi oo ilaahay ugu deeqay marka si fiican marka waxa moodaa xiriirkoodii muddada dheer soo jiray nicmo sida uu ku burburay si fudud waa burburkoodii waxa dhacday January 2013 Shakira iyo BK marka waxa dhacday in caruur kale uu dhashay waa ninka uu ka daadiyay Mubarak nin yiraahdo macnaha magacyadaas waa la weydiiyay waana ku qoran tahay barnaamijyada soo ahaan 22 January 2013 habeenimo 3 saac iyo 36 daqiiqo PM BK iyo Shakira cunuga uu dhashay waxa jira marka sababta loogu bixiyay magaca Milan waxay tahay macnaha waxa loo jeeday jaceyl iyo macnaha waxa loo jeeday magacyo Roomaan isku jira waay adiga waxa waay like dia يعني لابين waxaan ku qaaliyahay oo aad jeceshahay wax saas camal ah safiican marka magacyadu u bixiyeen saas waa tusaalahan Mubarak oo kala hadda ay leeyahay cunuga u bixiyeen waxa jira in ay waxyaabo heritage ama dhaqana naagtan maadaama asalkeeda awiyaasheed ay Lubnaani ahaayeen ay u qaxeen Colombia sida ay ahaayeen marka waxa moodaa in cunugoodii labaadna markii uu dhashay Mubarak u bixiyeen 29 January 3 saac iyo 54 ilmaha habeenimo ay dhasheen oo 3 saac Milan kaas way Shakira marka iidaad markasta magacyada iida xulanaysa oo aabaha dhankiisa rabitaankiisa ma ka iimaanaynin marka tusaale ahaan Shasha wana ag fadhiyo baade Shasha sababta lagu bixiyay waa magacyo Greek iyo Russian waa Yakubi Shasha ande ona jooga ma ilka dhimeen waay kaas way saqiir waay macnaha waa magacyo Greek iyo waxyaabo isku jira waay laakiin Mubarak iyo Milan magacyo waxa waay iyada dhaqankeeda iyo qoysaskeeda oo qaraabadeeda laakiin magacaas oo kale waa magacyo waxa loo jeedaa macnaha wiil faraxsan iyo marka saxaafad dalkaasi aad ay u qaateen marka May 2017 oo kale Jared BK ayagoo magaalada Boston joogo meeshaas xoogaa yar kala shaka ka bilowdo macalinka ogtay ninka iska habeen badan yahay كل لك أيضا سوق رحيس ممكن أيضا أوقاتي وحاول لنا فريج كجري شوكولات مية واحد لكتي كو عرفت أيضا ويسميها حساس شوكولات إحنا مخلوق لنا يا كدبنا بعد قبتي يعني أصلا أنا استعمالي جرنا لنا يا ما جعلنا عن كاسي ها مركو كي رشك يسعد استعماشه اللي أنا بقبل كليته أو يعني قولي كان إذا موسيقى كم غشقة كم غتا كورنه أنا سايل لي هذا شغال كم مغن معنيك الدو معنيك لو كان صدق بركة وقليه وينكاس ماشي وقت الوضع قاطع شوكولاتوين كان معنك وسويها أو مات وارون كل تجلا يقول أنك قادلت وارون كل تجلا وصل برلها معنك إلى ست مرضى ما وديك تحتها وديك ها وديك تاو داف markii la isku digayo xoogoo la iska qabsanayo waxa waa mid qana
markii xoogo shoor ay jiraan assalaamu calaykum wa calaykum salaam baash ay maris ka qabashay leedahay tan laakiin ma isbalance hadii tagto adeeda haweenku waxa dhacday Shakira 2018 waxay ku guuleysatay Latin America dhan boobka ugu fiican ama Latin America bob album Torrivi waana 60 sano aba mar la bixinay way award karamariga xafladii ku guuleysatay Musa u raacin World Cup kadib way marka waxa moodaa in meeshaas kala shak u dhacay iyadana album waxay soo saaraysaa lagu magacaabo Eldorado wiliba aba marintaas aan dhahay albumkaas saxiixiisa door abunay soo saartay waka aba wixii dhan bijikii saxiix ku lahaa laakiin door heeso gabadha u qaraxda jirto oo waka ugu weyn this time for Africa this time for Africa South Africa markay hees la qaaday wajoog goobjooga xaadir ah ma joog iga wareysaday ma de caasimada lagu qaado weeraan gobolka wallahi waa joog heesta meesha lagu qaaday ma joogtay meesha lagu qaaday waxa la lahaa Rustenburg waa magaalo gobolkan Gauteng ka tirsan Johannesburg caasimada ah caasimadooda 10 sano wala wareejiya 10 sano markay maanta Soomaaliya Muqdisho caasimad ay tahay wala wareejina Jowhar 10 sano laga dhiga wala wareejina Kismaayo Hargeysa adiga anaga taasaan u fiican waayo way dhismay dawladda madaxweynaha wuxuu degaa meesha caasimada baarlamaankana meel kale degaa isku meel kuma shaqeeyaan South Africa hadda kale dawladdu waxay degan tahay Johannesburg Cape Town waxa degan baarlamaanka ama Pretoria hadda markii ugu dambeysay Pretoria ahayd caasimada markii aan joogay Johannesburg ahayd marka waa la kala wareejiyaa kulli markas Johannesburg ugu caansan ugu caansan magaalooyinka ugu caansan waay marka koobkii adduunka kadib Agost 11keeda xoogaa yar khilaafaadkii oo bilaaday markuu ciyaaraha ka fadhiisay Shakira iyo Piqué marka watii Barcelona Copa del Rey finalkii Atletico Bilbao New Camp ka dhacday 30kii 2015 sidoo kale way imaa jirtay laakiin waa laga waayay iyada oo xafladihii iyo abamarada uu qaadi jiray odaga marka waa laga waayay odaga markuu ciyaaraha ka fadhiisay in Agosto way kala weynaa 11keeda 2018 Shakira waxay sheegtay in Instagram-ka ay ku sheegtay waxay ku sheegtay mataqaana love is finished waa dhamaaday macnaha jaceylkii oo dhamaaday ala jaceylkayga fiicanay nasiib wada waxaa moodaa in xiriirkooda sanadihii dambe uu aad u sii adkaanay gaabisa ku yimid tusaalahaan November 2019 xiriirkooda waxaa la waqti taf oo aad u adag oo soo maray oo labada lamaane xataa inaan la isku arkin marka qaar keenaysay ayuu soo maray waliba bishii February ee 2022 yani waxay Shakira sheegtay reason ka mid ah waxyaabaha runtii ay isku dagaaleen labadooda shakhsi markaasna waxa soo ifaala baxay dunidana ay ku baraarugtay ciyaartooyga lagu magacaabo Gerard Piqué iyo sidoo kale Shakira markaas khilaafkooda iyadoo ugu dambeynna markii dambe ay kala tagi doonaan labada lamaane 11 sano oo wada jir ay ahaayeen waxaa xusid mudan in markii dambe statement ay soo saareen bayaankaas wuxuu ku aadanaa inay kala tageen gaar ahaan bishii June ee 2022 waxaana yani xusid mudan in September 2022 ay leeyihiin waxaana soo maray waqti oo yani ama saacado oo mugdi ah nolosheena marka Shakira marar badan ay ka hadashay Piqué naftarkiisa waa la weydiiyay waxaas ugu daran markii ay dheesay saacadaha kala saacadkaasi ma maqashataa saacadkaasi si fiican kaasiyada iyo macnaha iyo saacadaha abalka isbardhigaysa adoo saacad weyn haysta da saacadkaasi ka door bidi ka hor kaasi you know weeyay sima kaasiya saacadii hor anaga haysan saacadaha waa weynka waa yani dunida ka jiro iyada iska soo qaadaysa waxay leedahay waxa ku dooratay saacadkaasi marka wareysigaas ka mid ahaa waliba waxay siisay gabar Ellen Show lahayo dalka Mareykanka barnaamij show qabato oo caanka ah madaxweynayaasha dadka celebrity-ga dhamaan dadkaas wareysata ayay siisay mid aan ku weydiiyay sheekada dib ugu soo noqonaynaa maadaama labada lamaane 10 sano ay kala weynaayeen adiga gabar 10 sano ka weyn guursan lahayd of course hadii qof lacag leeyahay lacag leh ku qaadanaya wax kale ma jirto jecel tan ii joogta Allah igu barakay تقولي هذا العقب وقت لك مايا وهنا قبل كل أبو ضرب مايا ومايا هذا هلك حبة وفن هذا هي البحرين يا نسيبه كل واحد على نعيمه قبل اللي حنوصتي وحجرتي حتى مر ما أقانو إن ويه ما شيء أنت مقدقة شكيرة حرض حن إدرنتي البنا حتى يدوب جرتي إن أي رادين وحجر لفتي كده إن يستقل لفتي جس أقرأ إن حرض حن أي قرين وحيابا سوى وحتى وحكلا ما هن وهنا سئ مصير واي إن وايو حوجا وحول بلعبة إن وهاساو كلا أوسمي جرد بيك تصال هان سبتمبر ربكون يسدح إلى باتنكي شكيرة إن ما أقانو relationkii Gerard Piqué macnaha wax xun ay ku tilmaamtay tusaale
in aysan u qalmin isaga priority inuu siin jirin homekiisa iyo familkiisa waxayna aaminsaneed macnaha in nolol ahaan qaarkood ay dhimatay iyada marka waxay tiri qoyskayga markii horeba iima ogoleen ma aqaan hadda 50 sano iyo xoogaa already ay 48 jirta marka 50 sano 2 sano u dhimasay fiican marka intaas waxa xusud mudan Gerard Piqué ciyaartay magac la waaye dadka kubadda cagta leey kara way u baaneed waaye intaas kaliya ma ahan nin business man waaye oo ganacsada waaye waxaan la sheegaa in lacagtiisa waxa lagu qiyaasaa 80 milyan in lacagtiisa ay tahay ayaa la sheegay difaac Barcelona waxaana taasi ay tahay lacagta muuqato waxa laga yaabaa lacag kale oo aan muuqan in dabcan ay jiri karaan haddana kubadda cagta ku sii darsani kan waxa waaye ciyaartooyda farakutiriska ah waxa waa ayagoo lacagta leh oo milyaneer ah soo gala waay aabihiis warshadu leeyahay hooyadiis waxay ahayd macallimad qoys waxa barto ka soo jeeda isagana sidoo kale wuxuu kamid yahay ciyaartooyda kubadda cagta ee aqoonta leh kubadda cagta ku soo biiray marka Gerard Piqué gudaha kubadda cagta wuxuu ka fariistay 2023 waxa la sheegaa inuu yahay Catalan family waliba yani si deeply ah yani wuxuu xididada hoose ula galaa ama family hoose ay yihiin madaxweyne ku-xigeen hore oo Barcelona u soo maray oo lagu magacaabo Ademar Bernabeu ay si hoose wax isugu yihiin safiican yani waxa laga yaabaa in maadeeriyay ama adeerkiis inuu yahay laga yaabaa marka family oo Catalonia ku xideysta waay Catalonia saabtahay dad oo gooni goosada waay oo rabo in Spain inteeda kale ay ka madax banaanaadaan marka ciyaartooyga influencer intaas kaliya maaha uu ka sii wan yahay waxa si raacinayna social media oo kale wuxuu aad u isticmaalaa baraha kala duwan ee social media waxaana kamid ah barta Instagram-kiisa 200 waa cafan 22 milyan oo dad ayaa saaxiib u ku leeyahay waxaa la halmaanay sidaas dhinaca Facebook 24 milyan oo dad ayaa ku xiran barta Facebook ciyaartooyga hore Barcelona Gerard Piqué marka farqi 2 milyan u dhaxaysa labadaas aalad ee Instagram-ka iyo sidoo kale Facebook safiican waliba naciima ninkan ganacsiyo leeyahay warshado leeyahay waxa kamid ah shirkada brand soo saaro oo isaga founder oo ka yahay iyo shirkad kale oo madaxweyne oo ka yahay Cosmos Holland Sport Media la yiraahdo investment group ah sidoo kale shirkadaas wuxuu ku maalgeliyay 3 milyan partnership waxay yihiin shirkado caalami ah in xiriirka kubadda cagta tenniska adduunka International Tennis Federation iyo sidoo kale ninkan marka la fiiray qandaraas oo kula jira inkastoo xiriirkoodii 2023 ku dhamaaday dhanka financialka sidoo kale waxa jirta kooxda Andorra la yiraahdo iyo kooxda Gymnastic Monteres la yiraahdo inuu isagana uu yahay owner uu ka yahay sidoo kale wuxuu maalgelin ku sameeyay Portovelio shirkado oo venue-ga uu soo saaro oo e-sports game-kan la ciyaaro sidoo kale fantasy football oo leeyahay waxyaabo shirkada air condition soo saaro leeyahay sidoo kale waatii uu abuuray tartankii Kings League oo koobkii boqortooyada ay wada ciyaarayeen sidoo kale Gerard Piqué waxyaabaha uu sameeyay waxa kamid ah waxyaabaha contribution-ka sportiga entertainment-ga sida Kings League uu abuuray 2023 oo la ciyaari jiray Kings League marka tartan guuleyso noqday waa tartan la wada ciyaaray oo xidiga waaweyn ka soo qayb galeen YouTube-ka iyo Twitter-ka ama waxyaabaha platform-kana aad loogu deenay waliba 60 milyan oo wuxuu helay investment oo maalgelina 223 milyan faa'iido ahaan wuu helay wuxuu rabaa inuu gaarsiiyo North America dhankaas iyo Brazil Europe inuu 2026 ka dabayaaqada halkaas uu ka dhigay marka Gerard Piqué waa mid kamid ah ciyaartooyda kubadda cagta ee garoonkana ku guuleysay banaankana ku guuleystay waxyaabaha kale uu sameeyay waxa kamid ah personal life-kiisa oo kale aabihiisa kale oo John yiraahdo businessman oo ahaa hooyadiisa oo sidoo kalena waxay ahayd macallimid iyo director oo isbitaal Barcelona ku yaalo dhaawacyada ay marka la fiiriyo ay daaweyn jirtay walaalkiis isaga ka yar ee Mark la yiraahdo iyo waa marka la fiiriyo wuxuu u joogaa kooxdan Andorra iyo madax ugu yahay Catalan dadka aad ugu dood wuxuu kamid yahay independent-ga ama xorriyadda inay helaan marka kulli Shakira xiriir wada sameeyeen ilmo wada dhashay ee is wada guursadeen marka si guud waxa mudaa noloshiisa kubadda cagta inuu ku guuleysay haddana uu kamid yahay ciyaartooyda kubadda cagta kuwada ugu waaweyn marka shirkadaha oo ninkan uu leeyahay aad u badan yihiin kuwa 3 milyan 4 milyan uu ku maalgeliyay 5 milyan aadna xiriir wuxuu leeyahay Lionel Messi marka si fiican TikTok Instagram YouTube dhammaan social media waxa mudaa in uu isticmaalo COVID-19 markii cudurkii uu dhacay waxa la leeyahay isaga Lionel Messi oo kale 70% waxay jireen masharaadkooda kooxda Barcelona isagoo ugu leenaya in dhaqaale daro kooxdii ay wajahday inkastoo markii dambe cashuur lagu lahaa loo cafiyay oo 2019 oo kale marka kulay si guud kan hantida u qarsan iyo hantida uu leeyahay waxa la leeyahay baawar qaaliya guryo waa ciyaariyahan guuleystay waa kulay aad iyo aad waayahay
toddobaadkan isaga ayaan kusoo qaadanay Gerard Piqué ciyaartoygii hore Barcelona, Man United hore usoo maray, Real Zaragoza waqtigiisii sanyarka sidoo kale soo maray. waa filaya in wax badan ka bogateen ciyaartoygaasi sida gudaha garoonka markii laga soo tago maxaa quseeya sheekadiisii ugu badan waxaa waa Shakira oo 11 sano ay wada socdeen isla markaana markii dambe xiriirkooda oo ku yimaaday burbur gaar ahaan 2022 inkastoo caruur labada shaqsi oo ah dad markaasi magac dunida ku leh oo midna fanaanad ay tahay midna footballer uu yahay ay markaasi burburay xiriirkooda. marka waxaan filayaa in wax badan aad ku ogaateen xitaa dakhligiisa platformyada ama social media uu isticmaalo dadka ku xiran ayaa dabcan barnaamijka kusoo qaadanay. guud ahaan toddobaadkan intaas ayaan jecelnahay inaan kusoo gabagabayno barnaamijka dhanka kale waa Baliil anigoo aan macmagan oo idin la sida ay nabadgelyo.